saaka waxa ay ahayd waqti iminkana waa waqti aad iyo aadna waxa u sii mahad leh madaxda sharafta leh ee iyo caalo noogu timi ee na soo kaxaysay ee jigjiga nabadqab nagu keentay cidi kama dhimanin waan wada nabad qabnaa cidina nagama dhaawacmin waxa miidiyaha la wareejinaya waxba kama jiraan salaadiintii cuqaashii iyo madax dhaqameedkii kala duwanaa ee saaka aroortii hore laga qabtay dacawalay isla markaasina loo qaaday dhankaasi iyo caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa hadda kula hadlay warbaahinta gudaha magaalada Jigjiga isla markaasina sheegay inay nabad qabaan iyagoo ka hadlaya xaaladooda ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa nabad qabnaa nabad baynu ku nimid odayaashii guurtida ahaa ee beesha reesha Isaxaaq ee ergada halka u tagay cidi kama dhimanin waan wada nabad qabnaa cidina nagama dhaawacmin waxa miidiyaha la wareejinaya waxba kama jiraan nabad qabaan Jigjiga ku nimid wixii hawl hawsha xalkeedana dib baynu ka wada gali doonaa biidmillaahi tacaala madaxda sharafta leh wasiirada xildhibaanada leh la taliyayaal leh iyo odayaasha guurtida ee heer deegaan iyana goobta fadhida odayaashii aan odayga u ahayn wada soconay dhamaantiin baa waxaan isku salaamaya salaanta islaamka halka qodob ee kaliya aan anigu halka ka jeedinaya ama ummadda afarayna waxa weeye dhamaantayo inaanu nabad qabno nabad qab Jigjiga ku nimi hudheelkii martidii aan la soo dajiyay wax dhib ah oo aan caawa ka sheegaynaa goobtan aanay jirin wixii xalxal iyo nabadeynta dib baan uga hadli doonaa laakiin dhamaanteen nabad qab baan ku nimi waxa propagandada idaacadaha laga wadaan wax ka jiraan ma jiraan odayaashu wada nabad qabaan waanu dhannahay intaasaan ku soo koobaya ilaahay baa horta mahad leh ilaaha saaka iyo deemikadan bale ayaa mahad leh saaka waxa ay ahayd waqti iminkana waa waqti aad iyo aadna waxa u sii mahad leh madaxda sharafta leh ee iyo caalo noogu timi ee na soo kaxaysay ee jigjiga nabadqab nagu keentay aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaan iyagana u mahadnaqayaa odayaasha golaha deegaanka ee iyaguna halkan fadhiya waxa kaloo aan idiin sheegayaa hawle imikuun bay inoo bilaabatay dhammaan macaa deegaanka macaa xukuumadda macaa innagiina markaa innaga lafteennu aan degna laakiinse waxa weeyaan waxa inaga dambeeyana aan ku tashanno sida degdeg haddaynu alla ka dhigo wax uga qaban lahayn insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad soo kankana dhammaanteen marka labaad waxaan u mahad celinayaa wafdiga xukuumadda ka socday ee yoocaale nagaga hor yimid yoocaalaanu iska soo raacnay aad iyo aad u dadaalay si wanaagsan oo sharaf iyo qiimo leh oo kalgacal leh aanu isu soo raacnay noo soo dhaweeyey halkan noo keenay aad baan ugu mahad celinayaa wasiiradeenna nacam wasiiradeenu hawl culus bay guteen ilaahay baa ka jasaaysiinay jazaa'igooda ha siiyo marka labaad waxaan u mahadnaqayaa golaha nabadda ee deegaankeenna ee hudheelka nagu soo dhaweeyey dhinacoodana mas-uuliyiin heer deegaan ah iyo golaha nabadda iyo midnimada ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa odayaal dhaqameed ka soo dhaweeyey odayaashii dhaqanka ee yoocaale iska soo raacnay ee dushooda masiibadu ka dhacday iyagoo oo nabad aha ayaanu halkan nabad ku soo gaarnay akhyaartii nin walba meeqaamkiisa soo ku salaamana waa ku horteeda ka soo jeeda inta halkan ka muuqatana waa intii aanu wadada ku wada jiray iyo intii kale gobolka faafan hogaaminteedii ka soo jeeday iyo dhaqankii dowladda Soomaalida heer deegaan oo isaguna meesha inala jooga marka wax dhiba ma jiraan gurigiinii baa timaadeen dawladdiinii iyo xukuumaddiinii baa u timaadeen wixii hawl ee xalxal laga wada hadli doonana inagoo wada jira u wada joogna baynu hadduu ilaahay yiraahdo yaa laga soo dardaarmi doonaa laga wada hadli doonaa laakiin hadda inaad nabadna ku timaadeen gurigiinina aad timaadeen dhibna uusan jirin intaan baan si guud idinku sheegahaynay waxaan idinku daraynaa intaas weliba ruux isagu magaalada guri ku leh ee xaafadiisii jooga dad iska tegi kara isagoo dhib ma laha ruuxii isagu aan socotaha meel fog ka yimidna hoteelkaas oo hoteelkii magaalada ugu cusba ah ayuu qolkii loo qabtay ayuu iska degi nabadna uu ku ahaan cuntada iyo jiifkana isaga ayuu ku leeyahay wax dhibeena ma jiraan guriga nimaad timaadeen ninkii reer leh reerkiisii iskala saxan caawadan ba hadduu ilaahay yiraahdo intaasoo inama wada fahmin soo warcad ma aad u mahadsantahay idinkuna sida quruxda badan oo sharafta badan ee aad uga hadasheen waan idinkiga mahad celinaynaa dhanka kale odayaasha guurtida ayagana halkan goobtan idinku soo dhaweysina ayaga waan u mahad celinaynaa insha Allah hadda maadaama wad daalantihiin berriin baan si fiican oo ballaaran iskugu imaan doonaa golaha guurteena way soo booqan doonaan
annagana waan idin imaan doonaa insha allah hadda iska nasta awalan alxamdulilah ilahay waan ku mahadinaynaa nabad nagu keenay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad nabad noogu timideen idinkoo nabad qaba gurigiinna aad timideen odayaashiinna iyo dowladdiinna iyo deegaankiinna aad u timideen soo dhowaadaan idin leenahay horta marxaban waa siin soo dhoweynaynaa marka koowaad marka labaadna hadal kale idinkumaanaan talagelina soo dhoweynu bay ahayd wixii ka baxsanee howlahoo kale waa hawl inoo wada taallo oo ilaahay idinkiisa waa si tafatiran baan u galaynaa oo niyasami leh waxa ugu muhiimsan waxa weeye idinkoo nabada inaad noo timideen annaguna aan si nabada idinku soo dhoweynay waa afka waxaan ku hadlayaa golaha nabadda iyo midnimada soomaalida dowlad deegaanka ama guurtida marka soo dhowaadaan idin leenahay si qalbi furan oo walaalnimo aan idin soo dhoweynaynaa